jaamacadda Green Hope ayaa soo bandhigtay heshiis ay la galeen qaar ka mid ah jaamacadaha caalamiga ee ku yaala waddanka Cameroon. Cabdiqaadir Cumar Cabdulle Fiidka oo ka qayb galay munaasabad ay jaamacaddu qabatay ayaa warkan inooga diyaariyay. munaasabadani oo ahayd mid kooban isla markaasina lagu soo bandhigayay heshiisyo ay horey u kala saxiixdeen jaamacadaha Green Hope University iyo jaamacadda Kesmondes International University oo ku taala dalka Cameroon ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socotay wasaaradda hidaha iyo tacliinta sare ee Soomaaliya iyo qaar ka mid ah ardaydii master degree-ga programkaasi horey loogu bilaabay oo sidoo kale iyaguna goobta ku sugnaa. ugu horreyntii waxa goobta ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda Green Hope University Mustafa Macalin Cabdulle. qoranay aan kala saxiixno laba jaamacadood inay yihiin partnership wada yihiin oo laga bilaabo maanta masterkeeda uu leeyahay meel loogu hagaagi doono hadii la yiraahdo waliba uu noo ballan qaaday scholarship inuu bixin doono insha Allah waxaan marqaad ugu dhignay ardada dadweynaha iyo sida wasaaradda waxbarashada oo kale in nala joogaan insha Allah ma rabno inaan calashaan waxaan soo gudbino sal aan lahayn oo dhow baadi goob aan lahayn waxaan talagalnay inaan cadeyn aan ka bixino qaybta masterkeena inuu cad yahay oo ku xiran yahay jaamacadda KIU ku taala Cameroon. sidoo kale waxa goobta ka hadlay madaxweynaha amaba wakiilka ka socday jaamacadda Kesmondes International University Dr. Atanga. Kesmondes International University was founded as an American-based university registered in Delaware with over 100 accreditations, partnerships and memberships with different universities, institutions and organizations. Kesmondes International University has an official partnership with Green Hope University, and Green Hope University is the only official representative of Kesmondes International University in the whole of Somalia. And we have come to introduce postgraduate programs, masters and doctorate programs. We are bringing in scholarships for Somali students of Green Hope and to the entire population of Somalia. waa kuwan qaar ka mid ah ardaydii horey ugu dhameysatay qaybta bachelor degree-ga jaamacadda Green Hope University isla markaasina hadda dhigta qaybta master degree-ga jaamacadda Green Hope University ay soo kordhisay isla markaasina ka dhiganaya jaamacadda KIU Kesmondes International University. waxaan aad ugu faraxsanahay maanta anoo aan dalka ka bixin oo Green Hope oo aan ka qaatay baashkeygii maanta hadana aan ka diyaariyay master aad ugu faraxsanahay. waxaan hadda iskale maamulka jaamacadda Green Hope ilaahay ku soo aad maartay u daneynay master anoo master ka raadinay meel aan ka bilaabo maanta ilaahay mahadis waxa jaamacadda Green Hope inay noo keentay master aad bay ugu mahadsan tahay jaamacadda KIU master Otanga Dr. Otanga aad u mahadsan yahay marka aad baan ninkana maartay waxaan media u marinayaa dhamaan dadweynaha maanta maqlaya inay chance-kan ka faa'iideystaan arday badan oo baajkii ku istaagay oo meel master u raadiyaan maanta aan aqoonin waxaan ugu hambalyeeynayaa maanta inay ka soo qayb galaan barnaamijkan. ugu dambeyntii Professor Hussein Tooxow oo ah gudoomiyaha jaamacadda Green Hope University oo gabagabadii munaasabadda barnaamijka kula hadlay telefishinka Somali Cable ayaa ka hadlay muhiimadda ay u leedahay in markaasi jaamacadda Kesmondes International University ay la galaan heshiiskan oo ay ku soo kordhiyeen jaamacaddooda Green Hope University qaybta master programka. muhiimadda waxa waaye ninkan wakiilka ka Atanga in mataqaana aan maanta xaflad aan u sameeyno master degree-ga ama degree-ga inaan u sameeyno xaflad gaaban oo asagana uu safar ku yimid ninkan Atanga la yiraahdo safar ku yimid Soomaaliya oo ka yimid Cameroon marka waxaan rabnaa marka programkaas in mataqaana waxa loogu martiqaaday wasaaradda waxbarashada dadka tirsan waxa lagu martiqaaday muxuu ahay wakiilo oo ama ardayda master degree-ga sameynayso ayaa lagu martiqaaday marka waxaan rabnaa marka inaan mataqaana arinta xafladda taas ujeedada ugu weyn kaas ninkii wakiilka ahayna uu joogay oo u sheegno mataqaana in yani hawshan aan ku faraxsanahay ardayna la hela علاقاتkaas oo relationship-kan jaamacaddan iyo jaamacadda KIU mataqaana ay wada saxiixdeen. Cabdiqaadir Cumar Cabdulle Fiidka gudaha magaalada caasimadda Muqdisho Somali Cable TV.